horta waxaa la yiraahdaa nabadda inaga ku nool iyadoo inaguma noola bulsho waxa shardi u ah horta inay horumarto waxa u shardi ah nabad inay ka jirto nabadba naas la nuugale dagaal wiil baa ku dhintaa wiil kuma dhasho maadaama oo khilaafku yahay wax dabiici ah oo aan la joojin karin waxa muhiim ah in khilaafaadka loo bedelo qaab aan dib u lahayn bulshada iyo xiriirkoodaba lagana hortago in si colaad iyo dagaal ku jiro lagu xalliyo mushkiladaha bulshada dhexdeeda ka dhaca nabad iyo isku horimaadka wax la isku hordhiga ma aha nabadi waa taynu ku noolahay waa ta gobolkan iyo Soomaaliland badankeedu ay runtii muddo dheer ku jireen bulsho waxa shardi u ah horta inay horumarto waxa u shardi ah nabad inay ka jirto waa iska horimaad hubaysan oo u dhaxeeya wadamo kala duwan ama kooxo kala duwan oo wadanka wada tirsan dagaalka waxaa keena waxyaabo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin tartanka dhulka tartanka khayraadka dabiiciga ah colaadaha diimeed iyo qarannimada xornimo doon cunsuriyadda iyo adoonsiga ayaa sidoo kale sabab u ah iska horimaadyada hubaysan waxaa jira dad ummadaha degan ee xasiloon ee nabad haysta dad baa jira markay danahooda waxay doonayaan iyagu waayaan ka dhex faa'iideysta oo colaado abuura baa jira colaadahaas si walba way ku iman karayaan been la baahiyaa ka mid ah wax kaloo la sheego isku diraba iman kara waxyaalo aan jirin oo la abuura iman karta colaada dad gaaraba abuura laakiin waxay ku fitaa mujtamac oo dhan marka laakiin colaada marka la abuura ay mujtamacu iska daboolaan oo ay iyagu hubiyaan ay raadsadaan maxaa ka jira maxaan ka jirin sidee waxaan socdaa sidoo jira laakiin haddaad la boodo inaguna waxaynu noqonaynaa xaabadii dabka ku shidaysay dhibaatada ugu weyn ee dagaalku waa inuu xadido horumarka aadamaha halka faa'iidada ugu weyn ee nabaddu ay tahay in ilaa xadka ugu dambeeya oo ah inay furto fursado horumar ah dagaalku mar walba waxa uu keenaa khasaare hor leh halka nabaddu mar walba ay keento faa'iido dheeraad ah sidaa daraadeed islaamku waxa uu ina barayaa inaynu ka fogaano dagaal iyo iska hor imaad qiimo kasta oo ay ku kacdo wuxuuna ina farayaa in aynu dhidibada u taagno nabad ilaa heerka ugu sarreeya habkaynu wuxuu xalinaa waa hab jira laakiin ma qorna waxa loo baahay waa waxyaalaha aynu u baahannahay in la qoro oo laga sameeyo buugaag la tixraaco si loogu baro iskuulada iyo goobaha waxbarashada loo gaarsiiyo colaadeennasi markaa inaga inta badan waxaynu u raacnaa markaa laba hab laba dhinac baynu ka eegnaa sida lagu dameeyaa waa diinta iyo dhaqanka marka hore dhaqankaynu xoogga saarnaa haddii dhaqanka shaqoon waayay baynu furaha ugu dambayso oo ah diinta aynu culimadii iyo kitaabkii qur-aanka iyo baynu dib ugu noqonnaa aynu raacnaa dalaayo madax la qabtay leedahay mejal la qabta ma leh intay nabad jirto ayuu ninba laba nin leegyahay dhimasho dhaawac xadgudub galmo burbur hantiyeed nafaqo xumo caafimaad darro iyo naafanimo ayaa ah qaar ka mid ah cawaaqib xumada jidheed ee ugu khatarsan dagaalka saamaynta dagaalku ku leeyahay arrimaha bulshada waxa ugu weyn burburinta baahsan ee soo gaadha magaalooyinka dalka oo saamayn waarta ku yeelata dhaqaalaha dalka colaadda hubaysan waxay leedahay cawaaqib xun oo aan toos ahayn oo muhiim ah oo ku saabsan kaabayaasha waxbarashada bixinta caafimaadka bulshada biyaha deegaanka amniga iyo badbaadada bulshada cawaaqib xumadan dadban ayaa inta badan la iska indhatiraa oo aan la mahadin iskuuladu sideedaba social service particularly iskuuladu waa meel dad isugu yimaadaan dadna iskuma yimaadaan haddaan nabadgelyo jirno khilaaf meesha yimaado oo dagaal yimaado ama iska horimaanti dhaco waxa ugu horeeya kaashuurtaga ugu horeeya meesha ka dhacay waa iskuuladoo kala taga shaqada istaagta xataa caafimaadku daryeelkuna wuu dhacayaa laakiin dhakhaatiirtu marmar baaba emergency-ga ku shaqeeyaan oo adarkaysa in suuqa madow ay ku shaqeynayaan marka xoogay ay dhacaan laakiin waxbarasho iyo jaamacado iyo iskuulo iyo institutionskan xataa development institutionskan kale ee warshadaha iyo waxaasi dee way xidhmayaan marka ay dagaal ha ku degdegin mid sokeeyana ha kuma darin colaad sokeeye laguma ciilbaxo horta waxaa la yiraahdaa nabadda inaga ku nool iyadoo inaguma noola
waa shay runtii muhiim oo aynu aad ugu baahannahay sababtoo ah nolosheenoo dhan bay saameyn ku leedahay jiritaankeenoo dhan bay saameyn ku leedahay meesha nabadi jirtana horumar baa jira nolosha dadka ayaa u socota sidii ilaahay ugu talagalay haddii nabadaa la waayana wax waliba sida kale ayay isu bedelaan taan doonaya inaan ka hadlo waxa weeyaan meeshan aynu ku noolnahay colaad baa imika regionka Horn of Africa ka jira Ethiopia ma degana Soomaaliya ma degana oo ma oran karno waa 100% stable inaga imika laascaanood bay wax ka jiraan oo dagaalo ka socdaan Suudaan oo aanan weliga islahayn waxba ka dhici doona markaan arko waan runtii way saameyn bay ugu yeelatay anything can happen ayaan isiraahdaa wax waliba way dhici karayaan waa suurtagal marka taana inaynu ku cibro qaadano si aynu nabadda u xasilino ayaa muhiima marka anigu waxaan oran lahaa dadweynuhu ha feejignaado social media beenta ka samaysan dad aan ilaahay ka cabsanahay oo runtii aan maaragtay damiirnimadooda aan marmar calaamad su'aal baan anigu saaraa waxay ka hadlayaan waxaanay xoogogaal u ahayn oonay meeshiisa joogin oonay ogeyn cidda saameynta uu ku yeelanayo ayay balballaariyaan oo ay been ka dhigaan dhalinyarada waxaan kula talin lahaa ha ka foojignaadaan wax kastoo ay u arkaan inay nabad xumo keenayaan wax kastoo ay u arkaan inay colaad abuurayaan waa inay ka hortagaan oo cid waliba xaqiiqda maskaxdeeda la kaashato waxaan ma dhici karaa ma dhici karo horta maskaxdaada la kaasho wax suurtagal ma tahay haddaad ka shakida raadi bahalkeeda xogtoo sax raadso haddaad wax ka qaban karto cidaad isleed ka qabataan wax ka qaban cidaad isleed waxba ka qaban kartaa la doono laakiin kolley waxaan oranaa nabadda ha la ilaaliyo marka innaga waxa inoo ujeedaa runtii ujeedada ugu weyn waxa weeye inaynu ilaahay caabudno waa tii laynoo abuuray inaynu adduunyadana ku noolaan karno innagoo xor ah oo shaqaysanayna in dhaqaale inoo kordho dowladdana waxaa ku waajibaya inay cadaaladda ka shaqayso nabadda waa waajibka dadweynaha dowladdana cadaalad baa u ah waa inay guidelines u noqotaa oo dadku ku qancaan in marka shaqada la qoriya gaar ahaan da'yarta in kolba wixii soo dhaca dee loo siman yahay da'yartuna inaanay inta badan u hangal taagin dadkan warxumo tashiilka ah ee danahooga ka shaqeeya